Go away, I'm not home. Nina! Go away! Open the door! Go away! Go away. Go away, you. Go away. Go away. Farasaan oo dhanka filmada si loo isticmaalo goorma marka like you say this when you want someone to leave you alone immediately. Ana hataa rabo inaa iga tagto ayaa qasayso please go away, I'm reading a book, whatever at sameynayso go away, iga tag ee ka dhiinta ama bax. Example, I'm busy, go away, mashquul ahay or iga tag. Phrase 8, Trust me. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, and today's lesson is about like waxaan ku bari doonaa 8 real English phrase from movies oo kuwaas oo aad isticmaali karto ama maalin kasta isticmaali kartaa markaad ku hadlayso luqadda Englishka. Okay, phrase keeni Well, David, it really doesn't matter. Tell me it doesn't matter. But it's not my fault. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Goorma dhehaysa phrase can use it this when something is not important. You want to stop worrying about it. Like markaad rabto inaad wax joojiso wax aan muhiim ahayn, it's not important. You want to stop worrying about it. waxaas walwalkooda inaad joojisana waa rabtaa. Somali it doesn't matter, muhiim maaha, dhib mala, something waxsaas ay ka dhigan tahay. Example, don't worry, hawalwelin, it doesn't matter, wax dhibo mala hawalwelin. Okay, next phrase. Danny? That's my name. Don't wear it out. What's the matter with you? What's the matter with you? What's the matter with you? What is the matter with you? What is the matter with you? Like maxaa kaa qaldan, maxaa kugu dhacay oo kale, sidaas oo kale Soomaali ka dhiganta. Goorma dheh marka you say this when someone is behaving strangely or badly. You are surprised or frustrated by their behavior. Like tan waxaa dhehaysaa markii qof uu hadlayo like si aad u daran ama si xun. You are surprised or frustrated by their behavior. waxaad leeyahay yani dhaqankooda. Markaas waxaad dhehaysaa what's the matter with you? maxaa kugu dhacay, maxaa kaa qaldan. Example, what is the matter with you? Stop shouting. maxaa kugu dhacay, qaylida jooji. Okay, phrase 3. Wait a minute! Wait a minute. Wait a minute. When do you say goorma dheetan? You say this when you need someone to stop and give you a moment. Like markaad qof uga baahan tahay inuu istaago and give you a moment to speak. iyo waqti uu ku hasho inuu ku siiyo. Soomaali sug daqiiqada ayay ka dhigan tahay. Wait a minute, I'm not finished. Like daqiiqada usug weli ma dhamaanin. Phrase 4. Let me in! Let me in! All right, well, let me in so I can help. Let me in! Let me in! Let me in. Goorma, when do you say this phrase? You say like this. Kan waxaa dhehaysaa when you are outside and want someone to open the door. aadna ka rabto qof inuu albaabka kaa furo, then you say let me in. Okay, Somali iyo ogolo inaan soo galo. Example, open the door, let me in. albaabka ii fur, gudaha aan soo gala, let me in. Okay, phrase 5. I don't want to see you again for the rest of my whole life. And I don't want to see anybody else either. I don't want to see anybody. Phrase 5 waxaa waaye, I don't want to see anybody. I don't want to see anybody. You say this when you want to be completely alone. Like markaad rabto inaad gebi ahaanba keliga ahaato. Completely alone means you don't want to see anybody. Okay, markaasaa waxaa dhehaysa I don't want to see anybody. ma doonaa inaa qof arko. Example, please go, I don't want to see anybody. cid inaa arka maro. Phrase 6. Go away, I'm not home. Nina! Go away! Open the door! Go away! Go away. Go away, you. Go away. Go away. Farasaan oo dhanka filmada si loo isticmaalo goorma dheh marka like you say this when you want someone to leave you alone immediately. Ana hataa rabo inaa iga tagto ayaa qasayso please go away, I'm reading a book, whatever at sameynayso go away, iga tag ee ka dhigan tahay ama bax. Example, I'm busy, go away, mashquul ahay or iga tag. Phrase 8. Trust me. Trust me. Everything's gonna be fine. Did you say? Do you trust me? Trust me, yeah. When you say this phrase, you say this when you want someone to believe you
completely markaad rabto qof inuu adigu ku aamino completely gabi ahaan qofka inuu ku aaminaa trust me I can do it yaamin waxa waan sameyn karaa inaan la qof waan farasiyadan waxa way ku movies ugu caansan okay Somali yaamin example trust me yaamin I know what I am doing like waxaan aan sameynaa waa ogahay yaamin okay hora kugu sheegay so marka you want someone to believe you ina waxaan ka rabaa inaad aaminto so that's why I'm cool here trust me I know what I am doing. I can't believe this is happening to me. I cannot believe this shit. Okay, I can't believe this. Phrase 8. I can't believe this. When do you say? You say this when something surprises you completely, good or bad. Like wax markii ay adi yaab ay wax surprise ay ka dhigaan. Okay, good or bad labadaba ha ahaadaan. Okay, wax laga yaabay markii lagu sheegay in loo dhaw shaqada waa lagu dilacsiyo. Oh, I can't believe this. Okay, waxaasay Somali marumaysan karatan. Example, I can't believe this. You came back. qof shaqada ka tahay ama qof meel adi mar hore ku dambeysay aragtay markaas I can't believe this you came back so loud. Okay, that's all today's lesson. Please, if you like the video, give it a like, share and subscribe for more lessons. So see you next lesson. Bye.